kulanti wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha badan meel walba dunida kaga sugantihiin waxaan idin leenahay ku soo dhawaada sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee hadalhaynta suuqa kala iibsiga halkan waa Goal 24 kooxda kubadda cagta Manchester United ee ka dhisan horyaalka Premier League ayaa markaan doonaysa isku day ku aadan laacibka qadka dhexe kooxda Leeds United ee Calvin Phillips. Warbaahinada qaar ayaa tilmaamaya in laacibkan Calvin Phillips uu ka mid yahay dooqa ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee doonaysa inay suuqa kaga soo kalluumaysato maadaama muddo aad u fara badan baa la xiriirinaya dalabka ku aadan laacibka kooxda West Ham United ee Declan Rice ka oo hadda la sheegay in lagu qiimeynayo adduun dhan 100 milyan oo lacagta banka saasi darteeda kooxda kubadda cagta Man United ayaa u aragta fursad aad u wanaagsan inay dalabka ku xoojiyaan laacibka Calvin Phillips xidigan qadka dhexe xulka qaranka dalkaas Ingiriiska ayaa shakhsiyan bal ugu qiimeynaya adduun dhan 60 milyan oo lacagta banka oo dollar u dhiganta 77 milyan. Manchester United go'aankeeda aad buu adag yahay xilli ay aaminsan yihiinba in kooxaha kale ee la xiriirnay laacibkani Calvin Phillips ay kaga guuleysan doonaan markuu dib furmo suuq iibsiga xilli ay Manchester United doonaysa dib habeen xoogan inay ku sameeyaan qaar ka mid ah xidigaha ku sugan istaadiyaha Old Trafford. kooxda kubadda cagta Fulham ayaa markaan doonaysa inay u dhaqaaqaan dalabka ku aadan hogaamiyaha qadka dhexe Lazio ee Milinkovic Savic maadaama Fulham ay markaa u soo baxday ka qaybgalka horyaalka Premier League xil ciyaareedka soo socda kadib markii ay ka soo gudbeen Championship-ka ee wadankaasi Ingiriiska. kooxda kubadda cagta Fulham ayaa doonaysa inay xiriir aad u wanaagsan bay la sameeyaan 27 jirkan u dhashay dalkaasi Serbia ee Milinkovic Savic maadaama labadii sano ugu dambeysay laacibkan Milinkovic Savic ay aad u ceersanayeen ku dhawaad 9 kooxood ee ka dhisan tartamada Yurub haddana laacibku wuxuu ku adkeysanaya muhiimada ah inuu ku sii sugnaan doono kooxdiisa. kooxda Fulham oo doonaysa xil ciyaareedka soo socda inay awood ku soo galaan horyaalka Premier League ayaa markaa doonaysa in xidiga uu ka mid yahay Milinkovic Savic bay ku soo biiran doonaan garoonkooda taa oo ay markaa u arkaan in xil ciyaareedka soo socda Fulham inay saameyn xooggan ay ku yeelan doonto horyaalka wadankaasi Ingiriiska ee Premier League. hadalada uu isdaba joog ay ka soo baxaya qaar ka mid ah xubnaha sare ee kooxda kubadda cagta Fulham ayaa lagu micneenayaa in ujeedku ugu weyn ay tahay inay markaa ku dagaalanto kooxda kubadda cagta Fulham dhammaan xidigaha ka soo dhex muuqan doona suuq iibsiga xil ciyaareedkani balse targetka ugu horeeya waa Milinkovic Savic ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Lazio xilli laacibkaasi si dhow loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta Juventus. tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham Antonio Conte ayaa dhinaca kala doonaya inuu u dhaqaaqo hogaanka kooxda Paris Saint-Germain ee ka dhisan horyaalka liiga wadankaasi Faransiiska. Antonio Conte ayaa markaa jeclaan lahaa inuu noqdo macalinka bedeli doona Mauricio Pochettino ka oo lagu wada in guud ahaanba uu ka soo dhaqaaqi doono magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska. qaar ka mid ah warbaahinada dalkaasi Faransa ayaa tilmaamaya in waqtigan xaadirka uu doonayo Antonio Conte inuu fursadaas uu kaga faa'iideysto maadaama kooxda reer France ee Paris Saint-Germain uu dooqa koowaad macalinka u yahay ninka ka soo jeeda dalkaasi Faransiiska ee Zinedine Zidane. balse Antonio Conte wuxuu doonayaa in uu qabto xilka hogaaminta kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. horey wuxuu u soo maamulay Antonio Conte kooxo aad u fara badan haba ka dhisnaadeen Serie A dalka Talyaaniga iyo sidoo kale Premier League laakiin muhiimadiisu waxay tahay inuu qabto kooxdani ka dhisan horyaalka liiga wadankaasi Faransiiska. Antonio Conte ayaa kooxda kubadda cagta Tottenham maamulay kaliya tan iyo bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxaana hadda uu diyaar u yahay qabashada hogaanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain markii xilka uu guud ahaan isaga dhaqaaqo Mauricio Pochettino oo muddo aad u fara badan bahaminaya ku soo laabashada horyaalka wadankaasi Ingiriiska gaar ahaan kooxda Manchester United kadib markii United ka dhawaan ay ku dhawaaqday in macalinkeeda cusub uu yahay Erik ten Hag. wararka kale ugu xiisaha badan waxa ka mid ah Arsenal ayaa markaa doonaysa inay kula biirto kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter dalabka ku aadan Gabriel Jesus ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Manchester City. maamulka kooxda kubadda cagta Gunners ayaa markaa doonaya laba kacleyn xoogan inay sameyn doonaan iyadoo u arka in ciiraankaasi Gabriel Jesus uu noqon doono bedelka Alessandro Lacazette. agaasimaha farsamada ee kooxda kubadda cagta Gunners ee Edu ayaana wada hadallo la yeeshay wakiilada laacibkan reer Brazil bilihii ugu dambeeyay waqtiga kan xaadirka waxa la tilmaamayaa in Gabriel Jesus ay suurtagal noqon karto ka dhaqaaqista garoonka Etihad Stadium ee kooxda kubadda cagta Manchester City xilli uusan qayb muhiim ah uusan ka ahayn shaxda tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola. hase ahaatee hadda waxaa la soo warinayaa in qorshaha ay kooxda kubadda cagta Gunners ay dabacsantahay uu yahay mid aad u adag
maadaama tababaraha kooxda kubadda cagta Gunners uu sheegayo in fursadani ay kaga faa'iideysan doonaan xilli ay kooxda kubadda cagta Arsenal diyaar u tahay inay ka afdooto kooxaha reer Talyaani dalabka laacibkani Gabriel Jesus. kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dhinaca kale waxay doonaysaa dalabka ku aadan xidiga Fran Dion ka oo ka tirsan qaybta qadka dhexe Barcelona 24 jirkan ayaa istaadiyaha Nou Camp waqtiga kan xaadirka ku faraxsan ka dhex muuqanaya balse laacibkan Fran Dion ayaa mar walba wuxuu tixgelin doonaa hadalhaynta ku aadan macallinkiisa hore ee Erik ten Hag saas darteed Dion ayaa markaa la maleysan kalaaba inuu ka dhaqaaqi karo kooxda kubadda cagta Barcelona maadaama laacibkan hore uu sheegay inuu aad u qiimeynayo macallin Erik ten Hag waqtiga kan xaadirka Stadia Old Trafford waxaa si rasmi ah isbedel xooggan la doonaya inuu ka sameeyo Erik ten Hag ka oo markaa loo doortay inuu yahay macalinka hogaamin doona xilli ciyaareedka soo socda kooxda kubadda cagta Manchester United. wararka qaarkood ayaa si weyn markaa u la fagoraya in Erik ten Hag oo markaa uu sheegay in qaar ka mid ah xidigaha waqtiga kan xaadirka ka dhex muuqanaya Stadia kooxda Manchester United aysan ku wanaagsaneyn inay ku sii sugnaadaan xilli ciyaareedka soo socda saas darteed waxaa la fahansan yahay in Erik ten Hag uu aad u xiiseynaya in qadka dhex markaa isugu keeno sida Van de Beek oo markaa kooxda amaah kaga maqan iyo Fran Dion oo markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona lama wuxuu ka mid yahay qorshe uu doonayo in uu ku dagaalgali doono xilli ciyaareedka soo socda shakhsiyan laacibkani ee u dhashay dalkaasi Holland ee Fran Dion ayaa aad u xiiseynaya macalinkiisa hore inay markale wada shaqeeyaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ee ka tirsan horyaalka La Liga waddankaasi Isbaanishka waxay guud ahaan diiday mushaaraadka faraha badan uu dalbanayo daayirka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa tilmaamaya in madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Perez oo muddo aad u fara badan ku joogay fursad ku aadeen laacibka 23 jirka Kylian Mbappé uu geeyo garoonka Santiago Bernabeu balse hadal dheer kadib waxaa hadda la tilmaamayaa in wakiilka Ciidaankaasi uu cadeeyay in laacibku uu dalbanayo lacag aad u fara badan taa uu mushaaraadkaasi waqtiga kan xaadirka awoodi karin in Real Madrid ay u gacan geliso xidigan Kylian Mbappé ayaa markaa doonaya suuq xurta inuu kaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain markuu dhamaado xilli ciyaareedkani hase ahaatee waxay Paris Saint-Germain ay sheegtay inay isku dayi doonaan in laacibkaasi ay ku sii hakiyaan horyaalka dalkaasi Faransiiska balse Real waxay ka walwalsan tahay mushaaraadka waqtiga kan xaadirka uu dalbanayo taa oo aysan u saamixi karin in ciiraanka uu rumeeyadiisu ku aadan ku biirista kooxda kubadda cagta Real Madrid maalmaha soo socda ayaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez waxa uu doonayaa in kulankii ugu dambeeyay ay la qaataan xidigaasi Kylian Mbappé si guud ahaanba waxa looga yiraahdo arrimaha mushaaraadka faraha badan aysan awoodin karin kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama dunida uu aafeeyay dhaqaale xumo aad u baasan Real Madridna aysan awoodi karin in mushaaraad aad u fara badan ay siiso laacibkani Kylian Mbappé laakiin mar walba rajo weyn ayay ka leedahay kooxda kubadda cagta Real Madrid in Mbappé uu noqdo xidigooda rasmiga ah xilli ciyaareedka soo socda waryaanka kooxda kubadda cagta Liverpool Roberto Firmino ayaa doonaya inuu ku sii sugnaado istaadiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Anfield kadib markii la tilmaamay laacibkani inay suurtagal tahay inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda markuu dhamaado xilli ciyaareedkani waryaankan u dhashay dalkaasi Brazil Roberto Firmino kama mid aha markii loo eego ciyaartoyda waqtiga kan xaadirka uu adeegsado tababaraha kooxda Liverpool macallin Jurgen Klopp maadaama uu aad loo adeegsanayo sida xidigaha kala ah Diego Jota iyo Luis Diaz oo sidoo kale ay weheliyaan Mohamed Salah iyo Sadio Mane laakiin wuxuu laacibkan reer Brazil aad loola xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ka dhisan horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany laacibkan Roberto Firmino waa xidig weli ku qanacsan inuu difaacan karo booskiisa Stadia Anfield ee kooxda Liverpool maadaama Liverpool laacibkan qiimo ahaan ugu fadhiyo adduun 37 milyan oo lacagta banka markii uu ku soo biiriyay kooxda kubadda cagta Liverpool sanadii 2015 xidigani kaliya 30 kulan ayuu tartamada dhan u saftay kooxda kubadda cagta Liverpool kaliya wuxuu u dhaliyay 11 gool agaasimaha guud ee kooxda kubadda cagta West Ham Unitedna waxa uu guud ahaanba uu yiri dalab walba ee ku aadan Declan Rice ma dhageysan doono 23 jirkan ayaa la doonayaa in garoonka lagu sii hayo waqtiga kan xaadirka maadaama ay aad u xiiseynayaan qaar ka mid ah kooxaha ugu tunka weyn ee horyaalka waddankaasi Ingiriiska sida Manchester United, City, Chelsea iyo kooxda kubadda cagta Liverpool dhammaanba waxay aad u xiiseynayaan xidigani qadka dhexe kooxda West Ham United ee Declan Rice 23 jirkani ayaa heshiisku kula jooga kooxdiisa waxa uu kaga eg yahay June ee sanadka 2024 madaxda sare kooxda kubadda cagta West Ham Unitedna waxa ay doonayaanba in laacibkani ay u kordhiyaan 12 bilood kaasi oo ay doonayaan heshiiskiisa in marka uu sii socdo tan iyo sanadka 2025 ciiraankani ayana markaa doonaya guud ahaanba inuu isaga dhaqaaqo kooxda maadaama tababaraha kooxda kubadda cagta ee West Ham United David Moyes oo horaantii sanadkani uu u sheegay saxaafadda in kooxda ay doonayso in laacibkaasi ay ku iibiyaan adduun 150 milyan oo lacagta ganiga
taasi ayaana markaa keentay in qaar ka mid ah kooxaha aad kale la xiriirinayeen dhammaantood ay difaac galaan haddaba kooxda kubadda cagta West Ham United waxay dagaal culus ay kala kulmi doontaa Manchester United, Manchester City, Chelsea iyo Liverpool oo dhammaantooda si isku mid ah u baadi goobaya laacibkan 23 jirka ee Declan Rice. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka waddankaasi Ingiriiska Premier League waxay si weyn u baadi goobayaan wariyaanka kooxda Fulham ee Alexander Mitrovic. ciiraankani ayaana markaa loo arkaa mid aad u wanaagsan maadaama kooxdiisa Fulham uu ka caawiyay in ay ka soo gudbaan heerka labaad ee Championship-ka waddankaasi Ingiriiska. wararkii ugu dambeeyay ee ku aadanaa laacibkana ayaa la fahansan yahay in ay aad u xiiseynayaan kooxaha kubadda cagta ee Newcastle iyo Arsenal iyo kooxda kubadda cagta Everton. Alexander Mitrovic ayaa kooxda kubadda cagta Newcastle United hore ugu soo ciyaaray intii u dhaxaysay 2015 ilaa 2018 isagoo markaa u dhaliyay 17 gool 72 kulan oo u saftay kooxdiisa kubadda cagta Newcastle United ka hor intuusan u dhaqaaqin kooxda Fulham. Arsenal ayaa sidoo kale markaa doonaysa in ciiraankaasi Mitrovic uu noqdo bedelka dhowr ciyaartoy oo markaa la filayo inay isaga dhaqaaqi doonaan Stadium Emirates maadaama kooxani aad ku xiiseynayaan laacibkani Alexander Mitrovic ilaa hadda aysan soo bandhigin beec ay ku doonayaan laacibkaasi xilli ciiraankaasi ay markaa ku tilmaamayaan inuu yahay wariyahan buuxa laakiin Arsenal ayaa muhiimad gaar ah siinaysa inay markaa noqon karto kooxda ugu horeeya ee ku guuleysan karta saxiixa ciiraankaasi.